maanta shirkeenan jaraa-id waxaan ku qabanaynaa annagoo ah murashaxiinta madaxweynayaasha iyo madaxweyne ku-xigeenada dowlad goboleedka galmudug ee idinkaga muuqda sawirada magaalada dhuusamareeb. waxaan shirkan u qabanay inaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer galmudugba u caddeyno mowqifkeena ku aadan doorashada la rabay inay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug, laakiin hadda u muuqata in dowladdii federaalka ee soomaaliya ee loogu talagalay in ay ka shaqayso dhismaha dowlad goboleedka ay u muuqato inay go-aan ku gaartay inay boob cad oo maalin duhurkii ah ay doorashada kula wareegto. sida aan ka wada warhayno, dowlad goboleedka galmudug labadii sano oo lasoo dhaafay wuxuu soo wajahaya caqabado aada u badan oo uga imaanaya dowladda federaalka. waxaan ka warhaynaa in caqabadii koowaad madaxweyne xaaf oo jooga magaalada cadaado lagu kor dhisay laba madaxweyne, ayna dhisaysay dowladda federaalka ah iyo murashaxiinta hadda ay wadato u wadato xilka madaxweynaha ayadu dabada ka riixayso. kadib dagaal dheer oo lagula galay magaalada cadaado, madaxweyne xaaf wuxuu usoo wareegay dhuusamareeb asoo la heshiiyey maamulka ahlu sunna. dowladdu halkaas ugama harin, waxay go-aan ku gaartay in ay maamulka ahlu sunna iyo madaxweyne xaaf kala geyso, ayadoo ku guuleysatay bishii juun sanadkii 2019 in ay kala dirto madaxweyne xaaf iyo maamulkii ahlu sunna oo midba ay goonidiis ballan uga qaaday been ah. muddo yar kadib ballamadii beenta ahaa labadoodiiba waa looga baxay. waxaad ka horeysaan muddo dheer in madaxweyne xaafna gooni uu cabanayay, maamulka ahlu sunnana ay gooni u cabanayeen, iyadoo laga hadlayay ballanqaadyo dowladda federaalka ay siisay maamulada iyo madaxweyne xaaf iyo maamulka ahlu sunna intaba. intaas iyadoo la joogo yaa dadka reer galmudug haddana waxaa ay dowladda federaalka ku dhaqaaqday tallaabo kale oo ah inay soo dhisto guddi shaqaale iyo agaasimayaal u badan oo dowladda federaalka ay leedahay oo ay ku magacaawday guddiga farsamada maamul dhisida galmudug. guddigaas oo runtii inta taariikhda la ogyahay yacni gefki ugu weynaa kula kacay odayaasha dhaqanka iyo dadka reer galmudug. halkaas loogama harin, maamulkii mar walba murashaxiinteena iyo dadkii daneynaya inay galmudug hagaagto waxaan lahayn hala saxo. annagu waa ka hadalnay, maamulka ahlu sunna waa ka hadleen, ilaa madaxweyne xaaf iyo cid walbana waa ka hadashay, dheg looma dhigin, lamana joojin. waxaa hore u socotay gardarooyinkii iyo boobkii ay dowladdu wadaday, ayadoo aada og tihiin in hal habeen lagu saxiixay wax ku dhow dhowr iyo 60 xildhibaan oo odayaashii dhaqanka markay diideen inay saxiixaan xildhibaano aysan beelahooda soo xulin ay saxiixeen xubnaha madaxda ka ah guddiga farsamada. odayaashiina ayagoo wada dhawaaqaya oo qaylinaya bannaanka aad ku aragteen. halkaas markii la marayo oo weli khaladaadkaasi aan u adkaysanayno oon isleenahay galmudug yaa la heli doonaa, waxaa soo baxay baarlamaan isku dhafan oo maamulka ahlu sunnana xibno laga siiyey ayadoo la qiimeynayo dagaalada iyo shaqadii ay dhulkan deegaankan iyo nabaddii ay ka soo qabteen, iyo xubnihii kale oo dowladda federaalka ay soo xushay oo in badan oo ka mid a runtii boob iyo isdabamarin odayaasha dhaqanka lagu sameeyey ku yimi. iyadoo intaas ay soo dhacday ayaa murashaxiintan iyo kuwo kaloo badan runtii ay go-aan ku gaareen inay baarlamaanka u go-aan dhigtaan una gar dhigtaan. nasiib darro dowladda federaalka oo kalsooni darro weyn isku qabtay, wadatana dad gaar ah oo kursiga u rabto, yaa waxay aamini weysay in 89 xildhibaan lagu tartamo. waxay go-aan ku gaartay baarlamaanka inay kala jabiso oo 20 xildhibaan oo ahlu sunna ay bannaanka ka dhigto. waxaa soo haray 69 xildhibaan oo dowladdu ay ayada sidii aan idiin sheegay horey soo xulatay oo ay rabto in lagula tartamo ayada iyo murashaxa ay wadato. waxaan baaqiya ka soo saarnay in la joojiyo, oon sheegnay in la joojiyo arrimaha noocaasa, baarlamaanka la isku soo celiyo. guddoomiyahaan la hadalnay, waxaan la hadalnay madaxda sare, cid walbaan la hadalnay. waxaan nidhi baarlamaanka dib ha la isugu soo celiyo, 89 xildhibaan ha la keeno, in halkaas aan ku tartanno diyaaraan u nahay. dowladdii waa ay ka suurtoobi weysay. waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda reer galmudug inaan u sheego musharaxiintan dhammaantood sanadkan halhayska lala soo shirtaga wuxuu ahaa galmudug wada jirta, galmudug midaysan, galmudug mid ah, galmudug isla socota in la dhisi doono. waxaa soo baxday in dowladda federaalka ah
ay go-aan ku gaartay inay galmudug iska dhaaf midaysane galmudug ay u qaybiso 3 ilaa 4 garab si danta ay iyadu leedahay gaaban ay ugu gaarto waxaad ka waraysaan maanta galmudug inay leedahay 3 baarlamaan mid gaalkacyo uu joogo labana ay dhuusamareeb isla joogto madaxweyne leedahay xaaf maanta iyo berrina 2 madaxweyne oo kale yeelanaysa sida hadda hawsha ku socota haddaan laga joojin waxaan ku baaqnay in shaqadaas la joojiyo caqligu taliyo laysu yimaado laysku soo laabto waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed iyo dadka reer galmudug u sheegno 2 arrin mid waxa weeye nin baa nin ka af badnaabaa aad wuxuu rabay inuu been ku dardaro cabaar markay beentii wadeen oo isyiri ninka xoogaa waa ka aqli badisa ama waa ka garheshay iyo ninka wuxuu yidhi been walbood sheegto soo runnimo daba socota og hadda maanta wax walboo la sameeyo beenho lagu dhoodhoobo oo dowladda federaalka iyo maaragtay maamulka guddoonka baarlamaanka ay dhoodhoobaan run baa daba socota hal xaaraanun dhirig xalaala ma dhasho annaga waxaan nahay dad u taagan xuquuqda dadka reer galmudug waa u taagnaan doonaa maantaan u taagannahay berriyaan u taagnayn shalay waa u taagnayn waana u taagnaan doonaa haddii ilaa yidhahdo murashaxiinta aan matalayno oo madaxweyneyaasha iyo madaxweyne ku-xigeenada ah baaqeenna aan soo saarna wuxuu yahay kow in caqligu taliyo lana hakiyo dhammaan brosesyada socda labada dhuusamareeb ka socota midka gaalkacyo ka socda in la hakiyo 2 in tala la isugu yimaado muddo 15 cishaa gudahoodna lagu tashto la iskuna meel dhigo sidaan sidii galmudug sidaan dhaanta sidii loo heli lahaa haddii la waayo wixii mas-uuliyada oo ka yimaada waxaa iskale dowladda federaalka ah oo go-aan ku gaartay inay dharaar cad dadka boobto kursi beenahoo xaaraana dhisato waxaa moogtahay marka in cuqubadaadu soo daahdaa roodhe dowladdii federaalka beenta iyadii sheegaysay hadda maanta magaalada dhuusamareeb oo 2 baarlamaan dhisan tahay maxay rabtaa dadka soomaaliyeed inay u sheegto anigu uma haysto in caqli meeshaas ka shaqeeyey umana haysano haddaanu nahay murashaxiintii in sidaan reer galmudug loogu danaynayo waxaan ugu baaqaynaa inta caqliga leh odayaasha dhaqanka kuwooda caqliga leh baarlamaanada madaxweyneyaasha oo madaxweyne xaaf ugu horeeya maamulka ahlu sunna reer galmudug inaan ayaheena ka tashano dowladda federaalka waana gabtay waxaa ka soo hartay inay boob iyo handadaad isugu darto dadka waxaan rabaa inaan ugu baaqo meeshaan galmudugaa la yidhaahdaa horena waa u sheegay haddana waa ku celinayaa waxba handadaadu ma tarayso annaga waxaa nugu filan wax ugu badan oon haysano afkeenna wey haddii ilaa yidhaahdo cad xaaraana ku xalaalami mayno xalaalna ku noqon maayo haddii ilaa yidhahdo cid allaale ciddii wax boobtay ayadaa berri keeni doonta ayadoo sidaan ka tabar xun kana tala xun aad iyo aad baad u mahadsantihiin anuu ku hadlayo magacayga iyo kan murashaxiinta madaxweyne ku-xigeenada ah siduu sheegay murashax madaxweyne wadawaa iyo inta kaleba aragtidoodii waraal bay ka soo saareen annagana waraal baana ka soo saarnay wixii taariikha ilaa maanta ceebtaan maanta dhex taagannahay waxaana gaarsiiyey madaxweynaha baa horey usoo sheegay annaga hadda waxaa weye inaan ku taageerno aragtidaas baan usoo istaagay inuu ayidno qodobadii ka soo baxay warqadoodii iyo wixii hadda lagu sheegay waad ogsoontihiin galmudug waxaan ugu nimid inaan dhisno galmudug midaysan dadka dhan wada leeyihiin cid gaarana dhabarka u saaranayni hase yeeshee waxaan ugu nimid in arrintaasi ka duwan tahay maantana waa ayaan daro in deegaankani ka jiraan 3 maamul oo isbarbar socdo mid oo dowladda federaalka dhisayso mid ahlusunna waljamaaca dhistay iyo mid kalena gaalkacyo ka dhisan haddana waxaa laga yaabaa mid afaraadna inuu yimaado waa wax laga fiican yahay arrintaasi waxaan baaq ugu diraynaa dowladda federaalka soomaaliya in qodobadii murashaxiinta madaxweyneyaasha ay soo saareen inay dhegaystaan ayna ku dhaqmaan halkani xoogna la iskuma sheegan karo maantana waxaan ka cabsanaynaabo in maadaama ciidamo iyo 2 maamul magaalada dhuusamareeb isla joogaan qaladaad yaryar iska yimaado inay xabado iska dhacaanna waa laga yaabaa horaana loo yiri xabada hadday bilaabato waa saalan tahay sida loo joojiya baa adag marka taasna dowladda inay ka fikirtaa laan ka codsanaynaa aad baan uga xunnahay waxa meesha ka dhacay dowladda soomaaliya qaabka ay u dhaqmayso weli dowladda soomaaliya si gaara uma oran karno dowladda farmaajaan leenahay maxaa yeelay wax kasto oo dalkan ka dhaca meel baa mas-uuliyaddeeda saarantahay waa madaxtooyada
marka dowladda farmaajo waxaan ka codsanaynaa inay wax ka bedesho dhaqanka dhuusamareeb ee la timid dadka wada yeeshaan qeybaha kala duwan ay maqan yihiinna laisku yeero dibna loo dhigo doorashadan oo magacyaalada ah laisku caleymo saarayo oo saddexdan gees oo dhuusamareeb iyo ay joogaan gaalkacyo ee laga laabto baaqina waa intaas waana ka xunnahay annaga dad colaad wadno ma aha dad xaldoon baanu nahay waxaan u nimid inaan galmudug wax ka toosino aad baan uga xunnahay dib u dhac iyo 40 sano lasoo dhaafay 4 sano kale inay dalka deegaankan ku yimaado annagoo rajeynayno inaan ka dhigno galmudug kuweytka cusub geeska afrika ayaan daro siday wax ku socdaan noqon mayso aqligaa shaqeeyo siduu yiri madaxweynooda waa aqligaa shaqeeya leenaha la isku laabto hala wada hadlo wax la wadaago waxna hala toosiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh